gabar Ameerikaan ah ayaa gaarigeeda wuxuu uga halaabay wadada dhexdeeda waxayna soo xasuusatay inay guriga ku soo ilowday boorsadii ay ugu jireen taleefanka iyo lacagta waxayna sii taagnaatay wadada mana aysan garanaynin waxay samayso ilaa markii dambe uu uga muuqday wadada dhinaceeda nin fadhiya oo akhrinaya kitaab dharkiisa iyo qaabkiisana ay u muuqdaan inuu ka mid yahay fuqarada waxaa soo istaagay ninkii oo u soo dhowaaday gabadhii wuxuuna weydiiyey inay wax u baahan tahay gabadhii way ka cabsatay ninka waxay u malaysay inuu dhibaataynayo ama inuu ka mid yahay kuwa dembiilayaasha ah waxay ku tiri waxba uma baahni kadib ninkii wuxuu ku laabtay halkii uu fadhiyey markii hore wuxuuna bilaabay inuu sii wato kitaabkii uu akhrinayey xoogaa kadib wuxuu arkay gabadhii oo weli taagan waddada weliba iyadoo jahwareersan wuu soo laabtay wuxuuna ku yidhi waan hubaa inaad u baahan tahay caawimaad ee waan ku baryayaa igu kalsoonow is-adkayn adag iyo cabsi badan kadib waxay ku tidhi gaarigayga ayaa shidaalka ka dhammaaday wuxuu ku yidhi waa yahay ee igu siisu gaarigaaga dhexdiisa oo waan soo laabanayaa xoogaa kadib waxaa yaraatay cabsidii gabadha ay ka qabtay ninka waxayna ku sugaysay gaarigeeda dhexdiisa ilaa uu nus saac kadib soo laabtay wuxuuna weel yar ku waday shidaal si dhaqsi ah ayaa wuxuu ku furay qasnadda gaarigeeda wuxuuna bilaabay inuu ku shuba gaariga shidaal intaasi oo dhan gabadha waxay ku jirtay gaarigeeda oo kama aysan warhayn wax dhacaya markii uu ku shubay shidaalka kadib wuxuu soo wajahay dhankeeda wuxuuna ku yidhi iga raali noqo ma haysanin waxaanan ka ahayn $20 oo keliya laakiin waxaan rajaynayaa inay ku filan tahay inaad ku laabatid adiga oo nabad qaba gabadhii way ilmaysay waxayna ka dalbatay inuu u raaco gurigeeda si ay u soo siiso lacagta wuxuu ku yidhi muhiim ma ahan markii horeba aniga ma lahayn lacagta waxaa i siiyey qof kale anigoonan ka dalbanin gabadhii way baxday iyada oo ku fikiraysa inay u soo laabato iyadoo u sida lacag iyo dhar cusub markii ay u soo laabatay kadib waxay weydiisay magaciisa iyo xirfaddiisa waxayna ogaatay inuu yahay muslim u dhasha Afrika waxay ogaatay inuu muddo uu raadinayay shaqo kadibna uu waayey haddana uu halkan iska fariiso wakhtigiisa ugu badanina halkani uu ku qaato waxay kaloo ogaatay kitaabka uu akhrinayo inuu yahay qur-aanka kariimka ah kaasoo uu Allah ku soo dejiyey rasuulkiisa Muxamed naxariisii nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee kitaabkaasi oo ah mid dardaarmayo inay dadku iscaawiyaan halkii uu ka yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid ka mid ah axaadiistiisa sidan من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة gabadhii waxay u mahadcelisay ninkii wanaagsanaa kadibna waxay soo dhigtay qisadii dhex martay labadooda baraha bulshada waxay isku dayday inay u hesho shaqo waxayna u aruurisay $100,000 si uu ugu iibsado meel uu dego intaasoo idilna waxaa ka muhiimsanayd in gabadha iyo ehelkeeda iyo asxaabteeda iyo deriskeeda qaar ka mid ah ay garteen islaamka iyaduna waxay ahayd midii ugu horraysay ee islaamtay iyaga ka hor alla weyne wuxuu yidhi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين